عادي أنا بروح معي إن ضد أما سياسيين باش هيدا كسوجينا أي صفة خلطان وترجمان دولكا لإيبيي gobolka awdal ama magaalada Boorama marka aynu laba arrimood ka hadalno midwaan sifaha sharciga ah ee lagu iibiyay midna waa dastuurku muxuu siinayaa madaxweyne ku-xigeen Sayid horta dastuurku sidaan soo sheegay waxba ma siinayo madaxweyne ku-xigeenka laakiin sifaha sharciga lagu iibiyay waxa weeye dhulku wuxuu ahaa dul dawladeed dul ay dawladda hoose xukunto horta maaha waxa weeye dhismayaasha dawladda dhexe ayaa xukunta maaya wuxuu mas'uul ka yahay dhulka la nashqadaynayo ee la bixinayo in aw dhul danta guud ka reebo muxuu kaga hadlay dhul ama dhismayaal gaboobay oo Ingiriiska ilaa oo la iibiyay dhulkii beeray oo nashqadeeyay dhulkii dantii guud buu cunay maaya waa dhulka uu qaadlay wasaaradda hawlaha ayaa dastuurku siinaya inay mas'uul ka tahay dhulka qaranka iyo dhismayaalka qaranka haddii loo baahdo in la iibiyo haddii loo baahdo in la repair gareeyo iyada ayaa ka mas'uul ah dhammaan dadkani waa dad sifayaal qaldan uga soo horjeeda ganacsadayaalka horumarinaya gobolka ganacsadayaalka laga iibiyay dhulkaasi waxay la mid yihiin ganacsadayaashii laga iibiyay dhulkii Hargeysa ku yaalay ee Ingiriisku ka tagay oo laga iibiyay dadka ugu cashuurta badan ugu deegaanka badan ugu awoodda badan ee dakhliga soo galiya gobolka muxuu uga hadlayaa madaxweyne ku-xigeenku uu qaldan yahay dad caynkaasana inuu soo dirsado dee ma aha madaxweyne ku-xigeenku waa inuu ku ekaadaa awooddiisa ah inuu yahay inuu matalo marka madaxweynuhu maqan yahay anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne ku-xigeenku caqabad ayuu gobolka ku yahay caqabadda ha ka daayo intaasay dib ugu filan beelaha uu iska hor keenay dhibaatooyin badan buu geystay madaxweyne ku-xigeenku dad aanan rayigiisa wada oo aanan dadka qancin karin waa inaanu soo dirin